بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا. كسر هذا ولا ريال ميزان كدقالها وإن شاء الله تبارك وتعالى أنت بدنا نكون ميزان 10 راسي حق الشرعية الدينية هي حق الواقعية وإنه يسكسي إنه حياة بدنا كصابسن حق إيو أقون إيو فاهين كصابسن كبعين تدقالها إيو كورنتيس إن شاء الله تبارك وتعالى درسي جن ما أنت وحام كلو ذاقيا سر من أسرار الثروة marka la doonayo in la sameeyo hanti iyo maal badan sir kamida siraha lagu sameeyo qofku inuu maal badan sameeyo ama uu dhaqaale badan sameeyo kuma xidhna income iyo lacag far badan inuu helo kuma xidhna laakiin waxa ku xidhan tahay طريقة الإدارة qaabka uu u maamulo dakhliga isaga soo galaya markii la taariifiyay ama la qeexay waa maxay qofka hodanka ah waa maxay qofka faqiirka ah badankeena waxaynu moodaynaa qofka account-kiisa lacag ka buuxdaan inuu qani yahay qofka aan account-kiisa lacag badan ku jirin inuu faqiir yahay laakiin sidaas ma waxay yiraahdeen dadka khubarada dhaqaaluhu waxa la isku balance gareeyaa ama la isku miisaamaa dakhliga outcome-ka iyo income-ka hadii income-kiisa uu ka badan yahay outcome-kiisu oo 1 milyan haday qofka soo galayaan isla markaana uu bishii isticmaalaya 1 milyan iyo barwa faqiir way ku dhax go'antay ninka hadii $100 uu soo galaya laakiin sidoo uu wado $110 oo kaliya baad uga noqonayaan ninkaas wuxuu hayaa ala dariiqi tharwa wadadii hodantinimadu lugtahaya hadaba waxaad qaadataaba ha yaraado $100 ha noqdo ilaahu $20 ha noqdo waxaynu maanta isbaraynaa qaabka loo maamulo ee loo maareeyo miisaaniyadda shakhsiga marka miisaaniyadaha la maareynayo mar meherado iyo muassasaad baa la maareeyaa oo iiraadaadkeeda iyo dakhligeeda idaarada tadaffuqaat naqdiya waxaan laahdaa masaariifteeda saafil arbaax waxyaabahaas la sharaxayo oo sheeko dheer insha Allah koorsiyadeen ku qaadan doonaa marna waxa la sharaxaa qofka intiisa yar soo galaysa hadaba intaas istiraatiijiyada dhowr leh hal istiraatiijiyado kamid ah insha Allah tabaaraka wa taala qaadan doonaa ana aad iyo aad u jecelahay hadaa dabaqdo oo u fiirsato in wax far badan dhaqaalaha uu iska bedeli doono ilaa $100 aad ku shaqaysidee ana ku damaanad qaadaya ku ballan qaadaya hadaad fulisay istiraatiijiyada inaad qabow badan dareemi doonto xagga dhaqaalaha ku saabsan yalla aan soo eegno insha Allah tabaaraka wa taala okay qaab hadaba aynu ogaano miisaaniyadda aynu sheegayna qofku uu u maareynayo u maamulayo dhaqaalihiisa waxaad ka soo qaadaa inuu ku shaqeeyo $100 oo kaliya $10 $1,000 $500 wado hadii qofku uu u maareeyo qaab leh idkhaar ama kayd haduu kayd u soo harayo qofkaas wuxuu lugta saaray baa leeyahay ala dariiqi thara hodantinimada wadadeedii buu hayaa $1 haduu soo harayo magaalada waxa buuxa hadda waxaan u sheegi karin magacooda aan ku dhawaaqi karayne anigu waxaan si fiican u garanayaa dadka taksiga ee dhaweeyaha guri ka dhistay baan garanayaa waxaan garanayaa ninka $10 muraayada soo siiyay dhulka la wareegay haddana aad wuxuu haystaa ninka dukaan yar iyo baalasho ka bilaabay hadda milyaneerka ah $1 ee ugu dhaqaalaha badan ee dekada berbera wax kala soo degaa marka asal kamida asalada ay isku waafaqsan yihiin dadka dhaqaalayahanka oo dhan waxa weeye qofku haduu idkhaar leh kayd haduu leh kayd oo waxa soo gala wuxuu ka haraan qofkaas wuxuu hayaa dariiqii hodantinimada waxa soo galaya haba badnaado malaayiin ha noqdo hadaan qofku kayd lahayna wuxuu dhabbada ama lugta saaray dariiqii bisaaradda iyo qaxarka iyo bisha aakhirkeeda Soomaalidu wada qayliya si aakhir shahri ku sheegayaan hadaba aynu eegno miisaaniyadda walaalayaal qaabka loo maamulo boqolkiiba waxa loo qaybiyaa al-muhaafidh 6 jeeb baa loo qaybiyaa bucket 6 jeeb baa loo kala jabiyaa waxa ku soo gala wuxuu doonaa noqdo qaybta koobaad waxa laga dhigaa daruuriyaadka waxyaabaha nolosha ka shidaalkaaga xaafada biilkeeda qadadeeda noloshaada kiradaada waxa lagu fariisiyaa boqolkiiba 5 noloshaada hadii noloshaadu ay ka badan tahay 55% haday ka badan tahay noloshaada dib aad ugu noqonaysaa waa taftafaysaa waa salaxaysaa xaab badan oo qaaliyo zaid kugu aad ku noqonaysaa marka waa in noloshaada rasmiga ku soo fadhiisato 5% waxa aad qaadato haday ka ziyaadsan tahay waxaad ku nooshahay wada aan jeebkayga hay bad ku nooshahay waxa la yiraahdaa jeebada labaadna al-idkhaar al-qariib waa kaydka dhow oo isaga laftiisa waa la iska yar kaydsadaa waxa loogu talagalay haday balaay afka kugu soo kala qaada Allah inaga hayay ama wax ka jabaan ama dhibaato kugu yar timaado ama cidil akhtarka ka gasho waa kaydka yar lagu noqdo boqolkiiba 10 baa kaan la dhigaa $100 aad qaadatay 5 ku noolo $10 halka dhigo waxyaabaha ku soo cararaya ugu talagal al-idkhaar al-baciid jeebka saddexaad waxa laga dhigaa kaydka fog
ka waxa loogu talagalaa istismaaraadka maalgashiyada xooggan ee islaada kuwan Allah ilaahay dayacmi maayaan mashaariicda waaweyn ayaa loogu talagalaayo marnaba looma dhawaado baciid waxa lagu leeyahay haddii wax waliba kugu go'an oo hargeyso dhan soo garaacayso inaad u jawaabin waana tobankaas ka bixinin bakadka afraad ama jeebka afraad waxa la at-ta'liim wa at-tatwiir waa waxbarashada iyo kobca adiga laftaadu waxaad u baahan tahay adceedii soo baxdaba inaad wax kororsato si hantidaaduna u kobcdo adna aad u kobcdo haddii meel aad ku istaagto isla wallahi dhakhtarka ilkaha waad soo barato dalka ku dayso laga tagaya graphic designer hadda tahay oo si fiican u taqaan laakiin halka ku dayso waxa ka soo daba baxaya inta soo feershano wad quusaysaa marka si door walba aad la socoto marba waxa cusub oo u iibsato macluumaadka lacag baa lagu bixiyaa Soomaalidu uma taqaan macluumaadka in lacag lagu bixiyo wax la xado uma ka shaqeeyaan iyo barnaamij la soo koobiyeysta iyo uma yaqaan macluumaadka wax lagu bixiyo laakiin adduunka marka aan ka hadli doonaa insha Allah macluumaadku waa waxa ugu muhiimsan wax lagu bixiyo adduunyada warkiiba 10 waxaad ugu talagelaysaa kobcaaga naf ahaaneed aqoontaada waad iskarinaysaa ka dambe shanaad jeebka shanaad waxa lagu ridaa marka isna boqolkiiba 10 dollar baad ugu talagelaysaa hadaad ku qaatana $100 التسلية والترويح نفط waxay isaga baahan tahay waxoogo in raaxaysato habeenada ay doonto casho fiican iska cunto style-keeda yar hagaajiso meesha doonto gaar nafta iska jecel taana waxa lagu talagalay la isma caburiye boqolkiiba 10 aad ku nafisayso dhulka ku wareegayso oo naftana ku nafisinaysa lagu talagalaa ugu dambeynta miisaaniyada jeebka shanaad boqolkiiba 5 baa loogu talagalaa al-cataa wa sadaqa ilaahay dartiina wax ula baxdo masaajidada iyo masaakiinta iyo dadka jilicsan iyo sadaqa weyn dagaato nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofku maalkiisa sadaqa kama bixiyo ilaa uu kobca ma naqasa maalu min sadaqa xooluhu sadaqadu ma nusqaamisay way kobcisaa haddaba haddii aad joogtayso oo aad ku dhaqanto waa miisaaniyad cajiiba qofku mar kaliyaata isla bil kaliyaata ayaa waxa uu suuroobaysa inuu ka noolaaday uu wax ka kaydsaday uu kharashaad ka dhigtay uu ka nafisay uu wax ku bartay isgaarsiiyo qof walba wax soo galaan laakiin waxa lagu kala xariifsan yahay qaabka loo maamusho waan ogahay dad badan waxa oranayaan wallahi waa macaan tahay laakiin dib hadaba sidee loo joogtayaa miisaaniyada qaabkan loo maamulo saddex qodob insha Allah tabaaraka wa taala ayaa kugu saaciidayo kugu fududeynaya inaad miisaaniyada qaabkan u maamusho maxay yihiin saddexda qodob hadaba si aynu miisaaniyada qaabka ugu maamulo saddex shay baa inaga caawinaya oo bal aynu ku dhaqanno qodobka koobaad ee naga caawinaya waxa weeyaan al-ibticaad can ad-duyun tamaman sideedaba waxaad isku daydaa inaad baasha deynta la ilaa ka fogaato habeen iyo maalin waxaad ka fikirtaa oo qorshaysaa qaabka deynta uga fogaanayso deyntu waa dhiig bax qofka dhaqaalihiisa waxa ugu weyn ee burburiya la dagaalamo way waayo dawba sidfay isku yihiin dhaqaalahaagu inuu kobcaa doonaysa $1 ku biiro deyntuna $1 bay ka nusqaaminaysaa marba warwarkeeda iyo buuxinteeda iyo waxaad u baahan tahay aad iska wada gaari laakiin aad iyo aad waxaad ugu dadaashaa inaad deynta totally ka dayso noloshaada ama qaymadaada ay soo gasho wax badan bay ka caawin doontaa taas waa laga yaabaa mararka qaarkood inaad dhaqaale iyo wax ugu baahato laakiin ka wareegaysan intaad ka wareegaysan karayso deynta qodobka labaad ee ku caawin kara inaad fuliso istaraatiijiyadaas waxa weeyaan nusqa can raatib mushaharkaaga waxa la diyaarsadaa mushahar la mida tusaalaan $100 baad ku shaqaysaa 100 raadis uun bay ku soo gali insha Allah taala dabadeed intaanay bishaadii ku soo gaarin ama mushaharkaaga aanu ku soo galin boqolkii aad haysay soo saar kala maamul qaabkii aad ugu talagashay u kala bixi taadiyo iska qabo markay ku soo gashan halkii ku buuxi haddii mushaharkii aad kala qaadanaysay ku soo galayay halkan 100 ka soo qaad halkan 100 ka soo qaad inaad qaabkan u fariiso miisaaniyada u jabisaa way ku adkaanaysaa marka dabqa waxa la isku dayaa in koobi laga sameeyo mushaharkaaga $100 dad ku shaqaysa bal 100 kale aad raadiso laba haddaad ku shaqaysa laba kale aad raadiso kun kale inaad raadiso kadibna kaagii intuu soo socdo mid account iskaga jira aad samayso oo kaaga sii hordega oo qorshayso kala wada bixiso xulbi sidiisa u maamusho dadkaaga soo socdaana uu soo galo waa dariiqada ugu fiican ee kugu caawinaysa iyaduna inaad miisaaniyada qaabkan u maamusho ugu dambeynta tatbiiq nafta ku adkee waa adag tahay inta hore la qabsanayso laakiin aad la qabsato runtii waa istiraatiijiya muriixa jiddan aad baad ugu raaxaysanaysaa aad baad ugu degaysaa wax badan baa isugu ka beegmaya istabayaacan iyo aakhiru shahrigan iyo bisaaradan iyo qaxarkan aad ka raysanaysaa dadku waxay isku dhaafeen talada la siinayo sida u dabaqaan adduunyada way qorayin buugaag baa buuxa ka sheekeynaya si milyaneer loo noqdo qaanuunka ilaahay dhulka dhigayna waa sidiisa haddii waxa la sheegayo qofku sideeda ugu dabaqo inuu ku hodmo waa la arkaa
markaa nafta dabdi nafta xayir nafta xanib ka shaqee sidii aad u horumari lahayd adduun iyo aakhiraba waxaan kuu soo rajaynayaa insha allahu tabaaraka wa tacaala qaabka aan uga sheekeynay haddii nafta aad ku adkayso wax badan iyagoo iska kaa bedeleen ayaad arki doontaa insha allahu tabaaraka wa tacaala qanaadkeenna iyo dhammaan social media shabakaadka ku leenahay ku taxnow si aad uga faa'iido aragtiyo badan oo dhaqaale ah oo xagga sharciga iyo xagga waaqica ah aad baad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum.